dhinaca kalena maamulka gobolka iyo degmada Berbera oo weheliyaan maamulka ciyaaraha gobolka Saaxil ayaa maanta sii sagootiyay ciyaartooyga kubadda cagta iyo ciyaaraha kala duwan ee gobolka Saaxil uga qayb qaadan doona tartanada ciyaaraha lagu qabanayo caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. mas'uuliyiinta iyo maamulka ciyaaraha ayaa waxa ay ka warameen ciyaartooyga iyo kartida faraha badan iyo dadaalka loo galay sanadkan in ay filayaan inay guulayso doonaan. gudoomiyaha gobolka oo ah nin dhalinyaro ah imika muddo 2 bilood ah waxay ku tababaranayeen ciyaartooygu way xaraysnaayeen gobolkii ku tababaranayeen kontonka qofba waa ordo iyo basket iyo cag waxaan ugu mahadnaqayaa barasaabka kontonka qof hawshooda iyo abaabulkooda iyo kubad ciyaarsiintooda iyo xareyntooda iyo ka warhayntoodaba galabtiina kubadda waxaan ku ciyaari jirnay oo hawsheedii ku socotay garoonka. waxaan kaloo u mahadnaqayaa isuduwaha cayaaraha oo maanta soo diyaariyey dhammaan intii ay ka koobnaayeen yacni xulka gobolka Saaxil oo anwaac badan isugu jira. aad iyo aad baan isagana ugu mahadnaqayaa. maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ciyaarahan maanta lagu qabanayo magaalada Hargeysa ka bilaabi doona Beritoole insha Allah ay ugu horeeyaan gobolka Saaxil iyo Xaysiin ay ugu horeeyaan insha Allah ciyaaraha ciyaartooyga gobolka Saaxil kalsooni weyn baan ku qabaa siday maanta u dhiiran yihiin insha Allah waxaan u rajaynaynaa guul baan u rajaynaynaa. sidoo kalena qaar ciyaartooyga kamid ah ayaa iyaguna muujiyay darankooda isla markaasina ay ka muuqatay kalsooni fara badan. ciyaartooyga hawsheedii waa gudanayna waa ku dadaalnaa sidii guul iyo gobonimo aan gobolka nagu soo helaan insha Allah bidmillahi kariim. gobolka Saaxil dadweynaha gobolka Saaxilna waxaan leeyahay taageeradiinni yaa idinkana dhinaciileekan waxaan kalan ku darayaa haddaan nahay guud ahaan cag basket orod dhammaantood waxaan leenahay gobolada Soomaaliland way soo soconaa waa ka soo baxnay gobolkaygii Saaxil garoomada isku keenkeena awoodeeda insha Allah bidmillahi kariim waan soo bandhigi doonaa. annagu ciyaartooyahan horta sanadkan diyaar baan u nahay aad baan u diyaarsanay motivationkaygu waa غير العادي maadaama halka waxa ka muuqda inama badan oo firfircoon oo ku yaro ka tayo wanaagsan oo wax balwada aan lahayn inta dambana insha Allah taala oo uu nagula dadaalay isduuhu in la soo xulo inama wanaagsan oo tayo leh. taasi oo dad badan ay aaminsan yihiin maanta ciyaartooyga u safanaya gobolka Saaxil inay yihiin ciyaartooy aan la dhayalsan karin. maalinta berita ayaa marka ugu horeysa waxa ay kulmi doonaan gobolka Xaysimo. Cabdi Salaam Xariir Sheekh Usmaan TV-ga qaranka Somaliland Berbera.